محيري iyo dadka Soomaaliya guudkiisaba wuxuu fahmay inuu qurmuun yahay gumaysigu calan kaliya oo meel ka lusha xornimo lama yiraahdo gumaysigu wuxuu ku fadhiyaa dhaqaalaha wuxuu ku fadhiyaa mabaadi'da markii laga dilo wuxuu ku fadhiyaa markii qoomiyada laga dilo wuxuu ku fadhiyaa markii mindil la isugu kaadhibo la isku kaadiro kuwa ka indha xiran oo indhahooda iyo maskaxdooduba ay ka daboolan tahay nalka weyn ama nuurka weyn oo ifahaya oo Soomaaliya oo ifahaya oo xornimadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo gobonimadiisa gaarsiinaya kuwa ka maskaxdooda iyo qulubtooda iyo indhahoodu ay ka madow yihiin oo waxa xukunka yarka arkaya kuwaasu waa jooga isticmaalna lacagtiisii badnayd waa haya mu'amaraadkiisii weynaa waa haya weerarka adduunka isku haya waa muuqata waxaan idinka digaa Soomaaliyeed ama gudnimada aynu ku noqono ama aynu daafacno dalkeena anagu haddaanu nahay revolution ama dadka armed forces ka ah waxaan idinka ballan qaadaynaa ilaa dhibicda ugu dambaysa dhiiganaga inaanan dib u noqonin wadada xalaasha oo aanu hayno inaanan dib uga noqonin ilaa Soomaaliya oo dhan ay ku xorowdo Soomaaliya meel kasta joog waxaan ku soo jeedinayaa hurdadii layna seexiyay aan ka toosno aynu u toosno nolosheenna midnimadeenna gobonnimadeenna wax qabsigeenna